ugu horeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa hambalyo u diray shacabka Somaliland doorashadii sida nabadgelyada leh ku soo gabagabowday ee dhawaan halkaasi ka dhacday. magaca golaha shacbiga dhammaan shacbiga Soomaaliyeed anagoo ku hadlayna waxaan hambalyo u diraynaa sida shacbiga muwaadiniinta ku nool Somaliland sida habboon ay codkooda iyo waajibaadkooda codbixinta ay u guteen hambalyo iyo garabkiisa Allah galo madaxweynaha cusub ee mudane Muuse Biixi oo loo doortay madaxweynuhu hogaamiyo goboladaasi waqooyiga Somaliland inuu hogaamiyo madaxweynenimada loogu doortay asna hambalyaan leenahay hase yeeshee badanaa golaha shacbiga markan oo kale wuxuu yiraahdaa garabkaaga Allah galo tawfiiqna Allah ku waafajiyo. guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa golaha ka horjeediyay dib u eegista ku saabsan canshuurta gunooyinka ee ku noqoshada miisaaniyadda qaranka ee 2017 oo uu golaha u codgeliyay waxaana guddiga uu soo jeediyay qodobo ay ka mid yihiin in guno-xilaadyada la siiyo mas'uuliyiinta dawladda laga jaro 8% canshuur bilaad ah laga bilaabo bisha Oktoobar ee sanadkan iyo in xukuumadda ay diyaariso xeer nidaamyo oo qeexaya guno-xilaadyada baarlamaanka federaalka si waafaqsan xerosaadka golaha shacabka oo dhaqan galaya sanad miisaaniyadeedka 2018 intaasi kadibna golaha ayaa codgeliyay waxaana ogolaatay 149 mudane 3 ayaa diiday wax ka aamustayna ma jirin. gudoomiyaha golaha shacabka oo ku dhawaaqay natiijada codeynta wuxuu sidoo kale sheegay in aan waxba ka jirin weerar been abuur ah oo uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada lagu daabacayay. wax diiday ma jiraan waxa ka aamusay 3 waxa ogolaaday 149 saadaradeed soo jeedintu waa ansax xogeynta waxaan ka codsanayaa in ay u soo rogto qaraar. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in baraha maxalliga folbogation baraha bulshada dood badan iyo arrimo badan oo marta aflagaada badan ay ka dhacday arrintaasi golaha shacbiga ma diidin canshuur hoosta laga xariiqo golaha shacabka wuxuu raadinayay inuu saxo cashuuraha laga qaadayo gunooyinka ay dhammaan mas'uuliyiinta dawladda ay qaadato in la saxo cashuurtooda meel la dhigay ahayd ma aha arrin sida ay u rogrogeen iyo sida qaabka daran ay u sheegeen fidnoolayaalka oo baraha bulshada waxyaabaha qaarkood dhiga. intaasi kadib golaha shacabka ayaa gudagalay aqrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada iyo ujeedooyinka uu xambaarsan yahay waxaana golaha ka hor aqriyay wasiirka amniga oo sheegay in sharcigan ula jaan qaadayo xeerarka caalamiga. sidoo kale wasiirka amniga ayaa golaha ka hor aqriyay hindisa sharciyeedka xakameynta hubka waxdila oo ay wasaaraddiisa soo diyaarisay. xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhowr su'aalood oo ku saabsan waxyaabaha sharciyadan ay soo kordhin doonaan iyo saameynta dhaqaale ay yeelan doonaan waxay weydiiyeen wasiirka amniga. ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo qaybiyay xisaab celinta gargaarka degdega gaarka ee xildhibaanada oo uu golaha ka horjeediyay xogayaha guud ee golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux. gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in maalinka Sabtiga golaha uu yeelan doono kulan aan caadi ahayn oo uu khudbad ka jeedin doono gudoomiyaha baarlamaanka ee walaalaha Jamhuuriyadda Djibouti oo dalka booqasho rasmi ah ku imaan doona. maalinta berita khamiista waxaa noo imaanaya marti wafdi ballaaran oo nooga imanayo oo hogaaminayo gudoomiyaha golaha xildhibaanada qaranka ee dawladda Djibouti ayaa noo imanaya berita soo degayaan haddii la yiraahdo marka dhammaan guddiga joogtada gudoomiyaasha xogeeyaasha iyo ku-xigeenada gudoomiyaashaba 7 subaxnimo in aeroboortka ay berita ay nagu soo dhaweeyaan iyo dhammaan xildhibaanada kale oo nala soo dhaweyn karta guddiga walaalaheena oo imanaya berito 7 subaxnimo. waxaa kaloo ka codsanaya dhammaan xildhibaanada maalinta Sabtida waxaanu yeelanaynaa fadhi aan caadi ahayn waxaan yeelanaynaa raalli ahaada waxaa berito maalinta Sabtida waxaan yeelanaynaa fadhi aan caadi ahayn oo gudoomiyaha oo hadal jeedin ka sameyn doono golahan. Daraaddeed 11 maalinta Sabtida waxaan jeclahay protocolka iyadoo la ilaalinayo si buuxda anagoo u fadhino protocolka ilaalinayna aan u soo xaadirno aan ka dhageysano walaalkeena ka imaanaya Djibouti baarlamaanka Djibouti gudoomiyihiisii oo nagu soo sharfay booqashada tan inuu noo yimaado. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin kulankeena maanta waa noo xiray.
Ibraahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.